magacaygu waa Shukri Abuukar Subayr waxaan ku noolahay America waxaa jira sanadkii lacag ay dawladda soo celiso oo loo yaqaan tax return lacagta marka la soo celinayo waxa lagu buuxsadaa ciyaal haddaan ku buuxsado ciyaal aan aniga dhalin lacagta la ii soo celiyay hooyaday xashka ma ku geyn karaa lacagtaas xalaal miyaa mise waa xaraam dhaqankaas waa been iyo khiyaano carruuraadan lahayna dawladdii been u sheegto dadkii been u sheegto khiyaano maleegto sidaa wax ku hesho ma bannaana kasabka ku yimaada beentii khiyaanadu waa xaraan allana tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi inna allaha laa yuhibbu alkhaa'iniin ilaahay kuwa khaa'iniinta ma jecel adugu waxaad khiyaamaysa ama muslim ha noqdo ama gaal aan xoolihiisu bannaanayn ha noqdo khiyaano meeshay ku timaadiya kasabkeeduba waa xaraan sidaa inay tahay waxaad ku garanaysaa inaysan kala qaad lahayn ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo fi saxiix al-Bukhari waxaa ku sugan iyo qeyrkiiba saxaabiga la yiraahdo Mughira ibn Shu'ba ayaa islaamka ka hor jaahiliyadii ayay niman israaceen gaala ah isaguna tabcan marka waa gaal islaamnimada ka hor waa dad gaala niman gaala israaceen nimankii gaalada ah buu laayay wa akhadha amwaalahum xoolahoodina waa soo qaatay iyagina waa laayay xoolihiina waa ka qaatay markaana gaala isleeyay thumma jaa fa aslam markaasuu yimid oo soo islaamay isagoo wata xoolihii uu nimankii uu laayay ka soo qaatay nabiga markuu yimid sallallahu alayhi wasallam oo soo islaamay rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam amma al-islam fa aqbal wa amma al-mal falastu minhu fi shay Mughira islaamnimada waan ka aqbali soo islaam laakiin xoolaha aad wadato anigu kuma jiro rasuulku sallallahu alayhi wasallam xoolahan gaala allaysay ka soo qaadatay anigu kuma jiro idhaaf marka wax weeyaan jaahiliyadii islaamka ka hor ay wax arintaas dhacayso قال marka ahdi aad kula jirto ballan kula jirto wada nooshihiin oo la nooshahay oo dalkiisa ku nooshahay oo baasaboorkiisa haysato oo muxuu ahay amaankiisa iyo wixii isagu samaystay aad ku hoos nooshahay inaad khiyaano iyo laalaab iyo been xoolihiisa ku qaadatay ma banaana si aadan bareer ugu qaadan karin baadan been iyo laalaabna ugu qaadan kareenin wallahu a'lam